بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وأيدي سلام يا أصحابتك وحيران kanaalka cilmi side maanta halkan waxaan ku qaadan doonaa cashiro ku saabsan Microsoft Office program ayaan ka hadli doonaa oo ardaydu in badan ay ku yaqaaneen qaarkood barnaamijyadaas in loo adeegsado ama lagu isticmaalo kombiyuutarada. hadda laakiin waxaan ku qaadan doonaa mobile phone word ama qaabka mobile ahaan wordka iyo excelka iyo powerpointiga saddexdaas loogu adeegsado aaladaha casriga ah. hadda waxaa kusoo biiray oo qaybka ah mobileka wuxuuna qabtaa in badan shaqooyinka oo uu hore u qaban jiray kombiyuutarada ama uu hadda qabto qayb lamid ah ayuu qaban karaa. waxaan daraasaadkeena ama xiisadeena maanta ay ku wajahan tahay inaan qaadano 3 program waa MS Word, MS Excel iyo MS PowerPoint hadda shaashada saddexdooda inooga muuqda. midka kale ku qoran OneDrive iyo LinkedIn ay ku qoran tahay kuwaas kale waa barnaamijyo kale dheeraad ah hadda inta badan dadku ay Soomaalidu ama dadka xafiisyada ka shaqeeya badi ay aad u isticmaalaan ama isku daarista laga isticmaalo uma badna. marka waxaan rabaa intaanan cashirka u guda gelin ka hor xoogaa yar inaan xusuusin yar sameeyo. meesha aad ka soo degsan karto waxaa si toos ah uga soo degsan kartaa Play Store-ka ayaad gelaysaa. marka uu ku soo baxo oo ku soo bilaawdo barnaamijka uu ku yimaado halkaas waxaad ku qoraysaa MS Word waa qaybta ugu horeysa marka aad raadinayso si toos ayuu kugu soo qabanayaa. marka aad dareemaysaa waa linkiga ugu horeeya oo kale kaasoo kale hadii aad kilogsiis waxaad arkaysaa. marka hadii anigu uma baahni hadii adiga uusan mobilkaaga ku shubnayn halkan meesha ay ku qoran tahay waxay ku noqon doontaa install. markaasna ku soo degayso toosna asiga ku shubaya programka halkaas ayaadna ka si adeegsan kartaa. laakiin ana hadda uu ii furan yahay hadda waa uu ii shuban yahay si toos ayaan isaga furnayaa oo waxaan dhahayaa open ma baahni hadii uu qofka u shuban yahay. laakiin waxaa ka wanaagsan inaan ka galno bartii aan marka hore asaasiyan ba ka bilawnay shaqadu inaan toos u galno meesha noogu jiro waa Microsoft apps iyo ku jira aniga halkaas aan ka gelayaa. waxaan ku horeynayaa marka aad rabto inaad furto kaliya waxay kaga xiran tahay one touch ama hal taabasho kaliya oo aad ku sameyso programka inta badan waxaa loo isticmaalaa markii aan ka hadlayno Microsoft Office Word ama MS Word loo soo gaabiyo waxaa loo isticmaalaa qoraalada caadiga ah sida buugaagta dokumentiyada kala gedisan ee laga adeegsado meelaha magaalooyinka ayn dhex mushaaxeeno waraaqadaha imtixaanaadka shahaadooyinka iyo naqshadooyinka noocaas waxyaabaha loo baahan in naqsho inta badan ee aad arkayso waxyaabaha la daawaca ee magaalada yaala asiga ayaa lagu isticmaalaa. marka aan furay hadalkan document ku qorwaa document hore aan u bilaabay markii aad u baahan tahay marka inaad qoraal cusub sameyso halkan balaaska ayaad riixaysaa waxaa ku soo baxaya create in meel ay ku qoran tahay. create in kaas waxaad ka dooranaysaa abuurid ama gal inaad page cusub abuurto ayuu ula jeedaa. waxaad ka galaysaa meesha ay ku qoran tahay blank document oo loola jeedo document maran ee faaruq ah. halkaas ayaad ka bilaabaysaa hawshaada wuxuu ku furayaa page cadaan ah. halkan waxaa ku qoran we give you a file placeholder name. meeshan ayaan waxaan kuugu qoraynaa magaca faylka aad u baxsato. hadda document inta badan soo qabtaa hadii aad doonto waad ka bedeli kartaa oo waxaan ku arki doonaa qaybaha dambe. hadda waxaan si toos ah u guda gelaynaa inaad shaashada si toos ah dhag u siiso. waxaa ku muuqanaya calaamad yar oo sida saacad oo kala farajeynayso oo luqadda afka qalaad lagu yiraahdo cursor-kaas markaad hesho waxaad qori kartaa dhammaan xarfaha shaashada ama screen-kaaga kaga soo muuqan doona A to Z ilaa iyo numbers waxaad ka doonto ama symbols calaamado kala gedisan. hadii aad u baahato calaamado kala gedisan halkaas calaamadaas ayaad taabanaysaa oo calaamada u hooseysa link English ku qoran tahay dhibicda ku qoran tahay kan kale waxaad arkaysaa hash calaamad afar gees iyo hal isla socda iyo calaamatul cajiib. badanka hadii aad taabato mar wuxuu noqonayaa symbol marna wuxuu noqonayaa ABC sida aad ka garan karto. meesha kale ay ku qoran tahay English hadii luqada kale aad la adeegsanayso ayuu ka saacidayaa oo luqada kale aad ku bedeli kartaa. laakiin hadda barnaamijkan isticmaalana anaga English kaliya ayuu baran yahay oo luqada kale Carabi iyo Urdu waxyaabo noocaas hadda noma barno. marka si toos ah marka halkaas aad joogto waxaad qoran kartaa document walba waxa aad doonaysid ciwaanka aad rabtid inaad mowduucaad ka hadlaysid ayaad qoranaysaa. tusaale oo kale tijaabo ayaan ku qorayaa halkan
ku qorayaa tijaabo oo waxaan tijaabinaynaa qaabkii aan wax ku save garan lahayn ama cilmiga hadda qaybta hadda aan bilaabayna waa qaybtiisa ugu horeysa oo tijaabada markaan tijaabo ku qorno oo aan ku qoran tijaabo oo aan ku qorano cilmi sidee tijaabo cilmi sidee channel cilmi sidee channel ayaan qoraynaa. okay waxaan su'aasha weydiinta la marka inta badan markii document la qoro waxaa loo baahan yahay in hadhow dib loo helo. okay waxaa markaad inaad u baahan tahay cilmi markaa qorsheynta dib markaad u baahan tahay waxaa qasab ah waxa la yiraahdo save inaad adeegsato. haddaba ku bishaarayso aan kuu sheego markii aad taqaanay hadii hore u taqaanay barnaamij office program hore u taqaanay office-kan hadda adeegsanayna ee application-ka mobilada loo adeegsada wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo auto save asiga ayaa kaligiis save gareynaya wax walba aad qorto marka aad farta ka qaado save gareynaya. laakiin waxaa dhici karaysa ama laga yaabaa inaad u baahato inaad save gareyso anyway waa dhici kartaa haddii aad istiraahdo save garey waxaad fiirinaysaa oo eegaysaa xagga kore ee meesha warqadda cadaanka ka sareyso meel ay ku qoran tahay 3 dhibcood hataa habantaa maaha meel falaart kala qaloocan aad arkayso ee shaashada ku qoran ee hadda aniga kalarka buluug iyo laga yaabo inay shakli kale ama muuqaal kale ay yeelato ayna hataaban waxaad beegsanaysaa calaamad u dhaxaysa weynaysada midow ee falaart qalooc calaamad u dhaxaysa ee la moodo warqad wax ku qoran yihiin calaamadaas ayaa taabanaysaa ee hadda aniga aan doortay ee cadaanka u muuqda calaamadaas waxay ku sheegaysaa waxa aad qortay inay save gareysmeen ay ku sheegaysaa. laakiin inta badan programka asiga waxa lagu yaqaan waxa loo yaqaan view afwan waxaad tagaysaa si toos ah u tagaysaa calaamada 3 dhibcood ayaa tagaysaa hadii halkaas option-ka aad ka weyso 3 dhibcood ayaa tagaysaa waxaadna beegsanaysaa save meesha ay ku qoran tahay waa sida hore kugu sheegay hoos waxa kugu qoran all your change are saved automatically ayaa halkaas dhammaan waxyaabaha aad samaysay automatic ayaa loo save gareeyay. haddaba haddii aan u baahanahay bari documentiga in helo in aqoons u yeelaya fiican waxaad si toos u tagaysaa meesha ay ku qoran tahay rename this file oo isla meesha ku qoran magaceed ka bedelaysaa waxaad ku qoran kartaa magaca doonis tusaale oo kale waxaan ku qorayaa cilmi sidee waxaan ku qorayaa cilmi sidee waxaan ku qorayaa cilmi sidee dan ayaan dhahayaa magacii documentiga wuxuu isku bedelayaa cilmi sidee oo save magacaas ayaan dhow ku raadinayaa barta uu yaalo inta badan isla programka gudihiisa ayuu dhex yaalaa oo markaad raadinayso uma baahnid inaad meel kale ka raadiso. waxaan rajaynayaa ardaydu ama dadka ka faa'iideysan doonaan inay wax badan ugu kordhi doonaan haddii aad jeclaato ama aad ka heshay like saar subscribe dheh gambaleelka taabo si casharada kale ee waxyaabaha kale aan soo dhignay ku soo gaaran aad iyo aad u mahadsantahay.